bulshadeena Soomaaliyeed oo ognahay in dhibaatooyin kala duwan ay haystaan waxaana ugu sii daran dhibaatooyinka qarsoon ee aadka u haysta inay tahay dhibaatooyinka ay kala kulmaan dhaqaatiirtooda ama goobaha ay u tagaan caafimaad ahaan taasoo ay kala foofurtaan lacag aad u badan lafahoogina soo galiya halis aad u badan qofkii xanuun yar hayay uu kala soo kulmay xanuun aad u badan kiisaska maalin walba ka dhacayna dhaqaatiirta amba isbitaalada dalalkeena aad ayay u sii kordhayaan haddaba maanta taa waa la isla soo dhaafay haddii qaliimo fiiga iyo dhibaatooyin waaweyn markii hore ay sheekadu hayd maanta waxay iskugu soo biyo shubatay awalba kiniinkii dalka soo galay aan tayo badan lahayn adoo 30 midcune amba 10 midcune aan waxna ku tarayn ayaa maantana waxa uu ku soo baxay weji kale aynu runtii aad ula yaabi doontaan ee isla socda inana dhamayso muuqaalka si aad u ogaatid xog badan ku soo dhawow muuqaalkeena maanta haddaba haddii aynu soo qaadano kiisaskii ugu dambeeyay ay kala kulmeen bulshadeena Soomaaliyeed dhaqaatiirta iyo wejiga dhabta ay tusayaan naxariis la'aanta iyo arxan la'aanta oo kaliya focuskoodu yahay sidii lacag ku heli lahaayeen haddaba qarxii ugu weynaa ee ka dhacay dalkeena Muqdisho dhawaanihii ugu dambeeyay sanadkii hore waxaan wada ogsoonahay wada garowsanahay dhammaan cisbitaaladii dalku inay u soo kala baratamayeen dhaawacii goobta yaale kaasoo dhaawacana laga furanayay lacag aad iyo aad u yareen runtii dhaawacaas oo loo naxariisanayn dhibaatada soo gaadhay in la caawiyana waba arrin ka fog haddaba arrinta kale dhibaatada ahayd waxay dadkii bulshada ahaa ee naxariista badnaa ee uu soo hilowday inay walaalahooga dhiiga ku caawiyaan oo calaa qof lagu xujeeyay inuu bixiyo $30 runtii taasina waxay ku tusaysaa wejiga dhabta ah ee dhaqaatiirteenu leeyihiin iyo dhakhtarada gaarka loo leeyahay naxariis la'aanta sidoo kale waxa way ka soo dhacday ishii kalena way qaraxday ognahay inantii yarayda MMT soo baahisay ee iyadoo 9 jir ay ku daateen dawada khaldan ee indhaha si khaldan loo siiyay taasoo dhammaan indhaheedina ku weyday imikana ah in yar oo bilaa indha ah taasoo wali dhakhtarkii wax talaabo ah iyo wax kaysa aan laga qaadin lagana yaabo inuu kaysas ka waaweyn kuwan uu geysay maadaama ay ognahay in indhuhu yihiin xubnaha bini'aadamka ugu qaalisan runtii sidoo kale hadaynu dhaahno kaysaska aynu tirino aad ayay u fara badan yihiin ee maanta kayskan aanay wada in aad kula yaabay ee guna kalifay inaan fiidoogan ka diyaariyo waa inan tagtay goob caafimaad kana soo iibsatay kiniinkan hortiina ka muuqda haddaba kiniinkani maaha kiniinkaad moodaysaan ee waa kiniin runtii dusha laga soo mariyay rinji loona eekaysiyo kiniin ganacsi ahaana dalka loo keenay runtii inantan buu Ilaahay waafajiyay in bulshada Soomaaliyeed u soo baahiso bal ila eeg muuqaalkan runtii adiga ayaa yaabi doona haddaba inantan waxay ku garaacaysaa kiniinki warxitaa ma burburayo موجدا waxaad arkaysaan inay ku garaacayso makooradaas dan bahalka yar ee xawaashka lagu tumo dan waxaad arkaysaa kiniinkii marka uu dilaaco uu najabi waayo in gudihii markii aad aragtid ay arkaysid inay tahayba waxani ciid runtii waa arrin aad iyo aad u la yaabay runtii waxaan markaa bulshada Soomaaliyeed aan uga digayaa aan mar walba fariinteedu ay tahay inay ka digtoonaadaan kiniinadan ay badanaa isticmaalayaan qof baa waxa uu tagayaa dhakhtar isagoo xanuun aad u fudud hayo waxaana loo soo qorayaa intaas kiniina kaasoo la leeyahay gelinka horena 2 cun gelinka dambana 2 cun habeenkiina 2 cun 5 cisho ku soo dhamee bacda dhan ee kiniinka taasoo isaga laftiisa markuu dhaqaatiirta caalamka tago sida Ethiopia Turkiga iyo dhammaan China markuu tagay India laga daadgurayo kiniinadii uu sida khaldan uu cunayay nuguna lahaa labada midho cun dhibaatooyinkaasina in badan ay ka dhaceen bulshadeena Soomaaliyeed waana lagu arkay qurbaha runtii arrintaasi waxa ay na tusaa iyo inanta fiidoogan ay soo duubto waxay nagu baraarujinaysaa inayna ka digtoonaano kiniinadan badan aynu cunayno haddii Ilaahay kugu caafiyo Ilaahay hadduu kugu caafiyo waayo dhammaan waxaan kiniinada waxay noo bannaan inaad salaad tukatid quraankana aad isku akhridid kaasa dawahan kugu filan runtii waxyaabaha kale aad la yaabiso waxa kamid ah qofkii waxaad arkaysaa inan baa iyadoo caadi u foolan karaysa waxa la oranayaa hanqallo sababtoo waa $800 qaliinkii lama doonayo $30 inantan kaliya laga qaato waxa la doonayaa lacagta $800 in ay laga urursado muhiimaddu waxa la eegayaa maaha bukaanka muhiimaddu lacagtu soo xareynayo ayaa la eegayaa maadaama dhakhtarkii lugaha soo saaray waa in lacag adag laga dhufta sababta looga dhufanayana waxa weeyaan in meeshan waxyaabaha
ka kala jiro dhan lagu kala dabaro runtii waa arrin ay u baahantay bulshada Soomaaliyeed inay u soo wada jeesato qof waa lugta wax ka noqonaya halkeer hoose lugta wax ka noqonaya markiiba qalliin baa lagu carcaraya si $2,000 looga daasado runtii waa arrimo jira oo in badan ay la kulmeen arrimaha la yaab kale waxa kamid ah ajaanibta waxaad arkaysaa nin dhakhtarool kule waa ajaanib waxa uu ku takhasusay cudurrada intaas oo dhan way uu dalkiisa uga imanaya ma dalkiisa dad bukaa jirin waxa halka kuuga cad farbayna ay ku gudantahay in dhakhaatiirtan iyaga dalka imanaya ajaanibta sheegaya aynu damaanteen wada dababoodino inay dalkooda waxba ka ahayn waa ninka maanta dalkiisa darajo fiican kaga soo baxa dhakhaatiirnimada markas fiican kaga soo baxa ee lagu kalsoona practicalkiisa sida dadku u daweynayo dalka ayaaba soo fasaxay taasina waxay ku wacaysanaysaa dhakhaatiirta dalkeena imanaya inay yihiin kuwa drug out-ka ee dalkooda waxba aan u tirsanayn dadna loo soo dirayo halkan markay halkan kugu xumeeyaan dawooyin khaldan iyo kolba ay wax kugu practice garayaan laguna dirayo dalkii tukriga dadna halka lagaga soo siinay dhakhaatiirtii tobtanka ku jiray marka horeba dalku reebtay ay halka kugu soo daweynayaan halkaana kharashaad badan iyo kaaga baxayaan lacag badan runtii waxaan u baahanahay in bulshada Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeesto arrintan aafada weyn ku ah ee dhammaantood wada yaryaraysay maanta haddii la eego dhakhaatiirta inta ku dhex dhimanaysa ciidaasi ka badan yihiin cidina ma daba socdo cidina ma kaantaroosho keliyaata waxaa u maqan dalkan iyo dadkanba waa dhalinyartaa usoo kacaysa dhakhaatiirta usoo baxaya hadday maanta meel uga soo wada jeestaan arrintan waxay 90% ku dhammaan karaysaa in arrintan la dabar jaro kiisaskan ay dhakhaatiirtu galayaan lagala xisaabtamo aad ayay u yaraan lahaayeen runtii dadkan waxa uu soo bixi lahaa dhakhtaro professional ah oo tayada waxyaabaha ay iibinayaan iyo waxyaabaha ay sameynayaan aad uga tayabayeen dhakhtarku kuma iyo iska tag dawadaadi ma hayne kaliya wuxuu ku oranayaa soo seexo aniga wixii ku galinayaba ku galinayay oo micnaha wixii kiniin ay yaala meesha aan ku siinay haday qalliin noqotana aan ku qalay runtii waa arrin aad iyo aad inay ugu baraarugsanaan tahay inahaas ayaan maanta muuqaalkeena kaga bixi lahaa wabillahi tawfiiq wassalaam